فنانكii weynaa ee Maxamed Saciid BK fankana hore ugu jiray imakana ka baxay ayaa hadaladiisu marka aad aragto waxaad moodaysaa inuu doonayo inuu fankii dib ugu soo laabto waayo hadaladiisa waxa ka muuqda xiise fanka uu xiiseynayo waayo maanta waxa uu ka sheekeynayay fanaaniinta socdaal faltun balbalaarka sharma boy iyo faladagaan inaanu ilaahay isku soo gaarsiin stage-ka hadaba fanaanka weyne Maxamed Saciid BK ee marka uu magaciisa dhalan rogay imaka la baxay Maxamed Mubaarak ee talaasomtana oo ah suuqeynta ayaa imaka u eeg mid fankii iyo xiiseynaya waayihii hore ee uu fanaaniinta la qaadan jiray maadaama oo imaka uu eeg yahay weli mid muuqaalkii fanka uu ka muuqdo oo dharkii iswaagariska weli xiran in muraayadihii xiran in qaabkii weli oo aan qaabkiisu weli uu fanaan ka muuqdo iyo nin iska caadi oo iswaagara hadaba Maxamed Saciid BK maxaad isleedahay hadii uu lagu yiraahdo iska soo noqo fankii uu ku tabeeyay dad badan oo taageerayaashiisina waxa laga yaabaa inay u gacan haadinayaan oo ay leeyihiin Maxamed Saciid BK oo miyaad soo noqotay qaar badan ayaa kumanada ugu soo qorayay miyaad soo noqotayba ya qaar kulaha hadalla la mid ah oo iyaguna dhaliilayay si ay uga xanaajiyaan oo fanka ugu soo noqdo oo waxay ku lahaayeen socdaal iyo faladagaan baa ku dhaamaa halka balan qaleeyo anigu markaan wax tilmaami jiray dee wax hagaagsan baan dadka u sheegi jiray laakiin iminka waxaan la yaabay bahalkii oo cay isku bedelo horta alxamdulillah ilaahi aan isu ag istaajin mashraxna isugu keenin sharma boy faladagan fartuun balbalaarka iyo socdaal aan igu soo gaarsiin mahad iskale aad baan idin salaamaya si fiican baan idinka dharkinaya waxyaabaha aad u jeceshiin baan idinka sheekeynaya laabtana waan idinkala hadlayaa qalbiga aad baa mahadsantiin bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama reer Soomaaliland waxaan fadhinaa Cali Jilbe waa hawleel aad u fiican horena waan u sheegay wuxuu inta macaan yahay wax kasta oo uga baahan tahay hurdo cunto waad ka helaysaa waa hawleel aad u sareeya anigu mar walba waan fadhiyaa dhexdiisa shaqaalaha sare nadaafadiisa maxaa ka galay ma sha Allah hawleel aad u wanaagsan waa hawleel dhalinyaro iyo waa wiil bas ku jira ma sha Allah ila socod ku badno mar kasta ku akhriso soo u dhow yahay ma sha Allah aad baa mahadsantiin guul iyo gobonimo